السلام عليكم داوديال soo dhawaada 15 minutes aan soo daahay sorry traffic xoogaa igu yara dhagay anyway that's an excuse marka dadkan sugaya insha Allah intay soo galgalayaan hadii Ilaahay idmo and update-aan rabay inaan dadka la wadaago cali macow thank you soo dhawo walaal soo dhawaada kulligiin Cabdallah Sucaad soo dhawo baayo soo dhawaada kulligiin wax badan la kala maqnaaye yes waa soo daahay traffic xoogaa igu yara dhagay meesha aan videoyaasha ku duubo gurigeyga ku yaala shaqaanan jiray oo muxuu ahayd shaqada marka intaan soo socday traffic aanan si fiican u qiimeynin waka qaaday baayo waka qaaday Sucaad thank you and immigration card the same thing I always aan ka hadlo hadii Ilaahay idmo ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo lacagta lagu buuxsado foomamka ayaa isbedeli doonta waxayna isbedelaysaa bisha 10 labadeeda October 2nd marka waxaan rabay inaan ayada ka hadlo hadii Ilaahay idmo hooda abay soo dhawo marka dadka xoogaa sugayna marka in yar intay ayada dadka ay ka imaanayaan waxaan rabay inaan ka hadlo saa la socotaanba doorashadii soo socotay wadanka way dardar gashay way shaqeynaysaa marka xisbiga dimuqraadiga waxay qaateen gabar madow ah oo ka soo jeeda gobolka California Kamala Harris Kamala dad badan aaday horta u soo dhaweeyeen one thing waa naag madow ah waxa dhalay aaba Jamaicana iyo hooyo Hindi ah maadaama ay codkayga magaabayaan okay one second somebody said okay no this is a bad idea one second volume no that's the speaker you know how to how is it now I moved a lot of things they said codkaagu gaaban yahay and hay hadda how is it right now say way codka hadda okay madama Kamala Harris uu qaatay Joe Biden markii ugu horeysay Joe Biden sidii dadkii siyaasadda la socday ama muxuu ahayd newska xoog u fiirsan jiray Biden markii doorashada soo baxayeen dadka tirada badan oo aadka u fara badan dadka ugu dambeeyay ugu rajada liita ayuu ahaa waxa soo saaray Biden madowga ayaa soo saaray waliba wuxuu ku soo baxay codayn uu ka helay gobolka South Carolina oo madow badan ee degan yihiin madowga aad ugu codeeyay madowga marka waxay siiyeen muxuu ahayd awood badan ayay siiyeen oo momentum ay siiyeen ka bacdi markuu meeshaas ku soo guuleystay ayaa waxay noqotay in muxuu ahayd ninkii codka isugu soo dhaca uu noqdo markasta uu ka hadli jiray meesha ay ka jirto dad wadaaga ama debating muxuu ahayd roomka ayuu wuxuu dhihi jiray qof dumara aniga hadii la iqaato ayaan waxay ii noqon doontaa qofka ila carara oo madaxweyne ku xigeenkayga noqda ayaa muxuu ahayd dumar ayay noqon doontaa haddana madowga waxa lagu cadaadinayay inuu qofta dumarta ee gabar madow ay noqoto maadaama ay madowga ninkan soo saareen oo asoo dadku ugu dambeeyay uu noqday ninkii dadku ugu horeeyay ay u codeeyeen madowga si aad waliba u sareysa ay ugu codeeyeen oo dadka oo dhan ay ka soo dhex saareen marka midda kalena xisbiga dimuqraadiga mar walba waxa la dhahaa madowga u codeeya madowga markii la sii kala saaro dadka waxa u codeeya haweenka madowga ayaa ugu laf dhabarta xisbiga dimuqraadiga waa haweenka madowga ah
haweenka madowga ah marka waxyaabaha ay inta badan xisbiga dimuqraadiga ee dadka ugu codeeya ugu badan ayaa waxay yihiin dumarka haweenka madowga marka lafdhabarka I think habartii guuldareysan jirtay Hillary waxay haysatay more than 95% codowga haweenka madowga ayay heshay marka Kamala waa la soo dhaweeyay dadka qaarkiisna gadaal ayay uga yara baxeen oo xoogaa muxuu ahayd xoog looma soo dhaweynin sababtoo ah Kamala waxay ahaan jirtay qareenka sare ee California ahaan jirtay district attorney ayay waxay ka ahayd muxuu ahayd California mar walbana qofka markii la eegayo shaqooyinkuu soo qabtay waa macangag waa qof aad u dagaalama dooda aad bay ugu fiican tahay saa u aragteenba weliba markii wadankan muxuu ahayd Donald Trump dadkii la shaqeynayay la soo saarayay maxkamadaha ama muxuu ahayd ay imaanayeen aqalka sare ama aqalka hoose dadka qofka la doodo oo ugu codka muxuu karsan oo taas la iskuma haysto codkar waaye laakiin record ayay leedahay recordkeedu muxuu ahaa markay ahayd laba officerka muxuu ahayd chief law enforcement officer ayay waxay ka ahayd muxuu ahayd California ninka qofka ugu sareeya oo xagga booliiska waa qareenka sare oo gobolka attorney generalka madow ayaa degan California marka cadaadis badan ayay saartay oo waliba markii loo eego systemka Mareykanka oo cadaaladda systemkaas aad uga janjeero dadka madowga oo waliba dadka lagu xiro intiisa badan oo waxyaabo badan la isku haysto waxay marka madowga badankiis aaminsan yihiin in markii ay awoodda ugu sareysay California ay haysatay waxay dadka u qabatay iska dhaafay inay aad u dardargelisay oo muxuu ahayd ka sharci adkeeday ka gacan kululeed dadkii ayada ka horeeyay ama ka dambeeyay oo kaleeto qodob kaloo lagu haysta ayaa jira waxaa jiray barnaamij asagana ah ciyaalka googooyo iskuulka cunuga edab daran ciyaalka wax badan ay sameeyaan markay teenager yihiin in waalidkiis lasoo xiro oo maxkamad lasoo saaro taasoo dad badan ay aad uga soo horjeesteen marka sababtoo ah cunug 15 sano jira ama 16 sano jira waalidkiis ma xukumi karo wuxuu rabo sameyn karaa yes waalidka wuu la hadli karaa muxuu ahayd dhiirigelin karaa all of those things laakiin waalidka marna ma xukumi karo cunugiisa oo muxuu ahayd 100% lama dhihi karo cunugaagu wuxuu sameeyay adaa muxuu ahayd mas-uulka ah taasaa marka rabinaa laakiin aad baa loo soo dhaweeyay tigidka muxuu ahayd xisbiga dimuqraadiga kor ayay u qaaday oo aad ayaa loo soo dhaweeyay sababtoo ah waa gabar madow ah marka ani waxaa aaminsanahay Soomaalidu waxay dhihi jireen muxuu ahayd gaalka dilgartiisana si qofka in muxuu ahayd ayno mahmaahda dad badan khalad u tahay but still Soomaali mahmaaha waa qofka khaladkiisa iyo saxdiisaba in la sheego ka bacdi inaad go'aan ka gaartid ma qaadanaysaa adoo khaladkii og laakiin qofka inaan loo qarin waxa ay yihiin yes muxuu ahayd anyone ayaa ka fiican ninkan la dhaho Donald Trump in loo codeeyo muxuu ahayd qofkaad is leedahay danta ayaa kugu jirto waxyaabahaas oo dhan muhiim waaye laakiin qofka muxuu ahayd in la sheego wuxuu ku xun yahay wuxuu ku fiican yahay marka waa la arki doonaa haddii madaxweyne ku xogeen noqoto mid kale waa 55 jir aad bay u yartahay siyaasi ahaan qof aad u day siyaasadda markii la eego dad waaweyn waaye qof daayar weeye siyaasad ahaan odayga la cararaysana 77 sano jira mid kale Biden wuxuu og yahay xisbigiisa muxuu ahayd future-kiisa ama mustaqbalka xisbigiisu inuu ku xirnaan doono dad kala duwan oo muxuu diversity loo baahan yahay qof yar inay tahay asagu inuu yahay buundo lagu gudbaayo camal oo transitional camal u yahay marka taas wuu ka fakeray taasaan rabay inaan ka hadlo xalayna waxaa bilowday isu imaanshaha xisbiga dimuqraadiga Wisconsin ayuu ka bilowday taas next video waan ka hadli doonaa insha Allah dad aad ayaa ka hadlay waxaan ugu muxuu hayto cadcada oo hadalkeedu ugu fiicnaa Michelle Obama marka kaas markii la soo gabagabeeyaan asna dul mari doonaa ayadana hadda waxaa la isku haystaa in America misdahaynin weligay post office-ka waxay qabsan doontaa newska ba dowladda Donald Trump kusoo dhawow meesha
muxuu ahayto post office-ka ay xukunto post office-ka maxaa la isugu heystaa post office-ka waxaa la isugu heystaa maadaama uu corona jiro waxaa la rabaa in la isticmaalo in qof walba uu soo diro muxuu ahayto codeyntiisa oo laga codeeyo mail in ballot waxaa la dhaho marka waxaan rabay anaga inaan sheego like hadda gobolka anaga aan degana weliba countyga anaga Ohio Franklin County ayaa la dhahaa marka waa kana kaasaan rabay inaan dadka la wadaago weliba dadka Minnesota waa soo gelin doonaa a lot of people dadka ay fiirsada Minnesota qaarkooda badan ka yimaadaan gobolada aan isleeyahay Soomaalida way ku badan yihiin waa idinla soo wadaagi doonaa laakiin hadda Ohio aan ku bilaabayaa haddii alle idmo absentee ballotka waxaa la dhaho ama qofka asagoo maqan intuu waraaqaha soo diro kale 3 talaabo muxuu ahayto ayuu ku shaqeeyaa oo 3 talaabo waa inaad qaadaa marka hore waa inaad codsataa waraaqda ama inaad kasoo saarataa oo kasoo dejisataa computerka oo muxuu ahayto download ah ku samaysaa print garaysaa kabacdi applicationka aad buuxisaa oo aad dhiibtaa markii la helo kabacdi waxaa lagu soo dirayaa meeshaad dadka ku kala dooran lahayd oo tig aad siin lahayd ayaad diraysaa marka dowladda waxa Donald Trump wuxuu kasoo horjeedaa sababtoo ah markii la eego nambarada dadka maalinta doorashada imaanaya oo muxuu ahayd u codeynaya madaxweynaha waxay u badan yihiin dadka lugahooda ku imaanayo in person shakhsiyan u codeynaya laakiin dadka dimuqraadiga dadkiisana waxay u badan yihiin dadka waraaqahooda soo dira ani shakhsiyan weligay waraaq codeyn ama dirin because I don't know yes hadda coronavirus ayaa jira cudur xun ayaa jira oo muxuu ahayd wax walba caafimaadka iyo muxuu ahayd badbaadada aadanaha ayaa ka muhiimsan laakiin aan weligay shakhsiyan kuma codeynin waraaq laakiin sanadkan waxay u egtahay inaan la huri doonin marka maadaama waraaq lagu codeyn doono dadka ayaan rabay inaan u sheego muhiimadda codku waa cod muhiim ah saa la socotaan immigrationka waxa ugu badan uu madaxweynaha ballan qaaday ayay ahayd inaa marka codeysaan qof walbana the whole reason aan programka u sameeyo xigta qof walba inuu ogaado sababta ay codeyntu muhiim u tahay iyo dantiisa meesha ay ku jirto inuu eego haddii lagu sharaxo qof walba caqli buu leeyahay wuu kala dooran karaa marka insha Allah mail-in ballotka inta ka dhiman doorashada si fiican ayaaba uga hadli doonaa haddii alla idmo unemploymentiga aadaa la ii weydiiyey weli waa la isku haystaa cakir ayay isku tahay gobolada qaar way kordhiyeen oo dadka muxuu ahayto hadda gobolkan Ohio kale waxay ku dareen dadka iskooda shaqaystayaasha ah lacagtii ayaga siin jireen gobolka sababtoo ah lacagta waxay dhiibi jireen $600 dowladda dhiibi jirtay $500 camal aadi $400 iyo xoogaa $500 it depends qofka waxa la siinayna waxa dhiibi jiray gobolka Ohio marka waxay ku dartay 20 usbuuc ayay ku dartay ilaa December inay sii socon doonto gobolada qaar kumay darin hadda marka waa la isku cakirinaya taas weli ma soo bixin marka let's go back waxa aan meesha dhan u soo galay wuxuu lacagtu waxay kordhi doontaa October 2nd October 2deeda ayay kordhi doontaa lacagta immigrationka marka waxaan rabay inaan sheego markii ugu dambeysay oo lacagta la kordhiyay waxay ahayd December 2016kii December 2016kii waxa ugu badneed oo lagu daray boqolkiiba 21 muxuu ahayd ayaa lagu daray hadda laakiin applicationada qaar waxaa lagu daray boqolkiiba 76% ayaa lagu daray marka applicationadan rabaa inaan sheego there's a big list haddii ilaaha idmo inaan ayaga dhan sheegaan rabaa wax kan ugu horeeya waxa waaye applicationka la dhaho I-9ga ama waxaa lagu sameeyaa applicationkaas kaba soo qaad hadduu green cardka kaa lumo kale ama lagaa xadoo kale kan aad ku dalbanaysid mid bedelaasha kaas lacagtiisa hoos ayay u dhacaysaa boqolkiiba 11 ayay hoos u dhacaysaa waxay ahayd muxuu ahayd online-ka markaa ka buuxsanaysid wuxuu ahaan jirtay lacagta $455 hadda waxay noqon doontaa $405 ayuu hoos u dhici doonaa haddii aa warqad ahaan ku buuxsanaysidna
wuxuu ahaan mar walba lacagtu isku mid ahayd markii hore laakiin hadda warqad ku buuxsanaysid iyo haddaa online ku buuxsanaysid lacagtu way kala duwanaan doontaa marka kan applicationka lagu cusboonaysiiyo green cardka I9 ayaa la dhahaa wuu raqiisi doonaa onlineka qofkii ku buuxsanaya $50 ayaa laga dhimi doonaa kan kalena $40 oo waraaqda ku buuxsanaya ayaa laga dhimi doonaa please people maxay hadhow dadku waxay dhahayaan ku celceli marka pay attention please applicationka loogu dacwoodo fiancéga waxaa la dhahaa I-129F ayaa la dhahaa kaba soo qaad qofka isku doonintihiin oo kale nina naagaa israbo inay isguursadaan ay rabaan marka ama ninka ama naagta loo dacwoonaa marka dowladda Mareykanka waxay samaysaa visa bixisaa qofkas markii fiisaha la siiyo wadanku ku soo galaa shuruudda ku xiran ayaa waxay tahay 9 maalmood gudahood inuu qofkaasi ama isku guursadaan ama gadaal uu noqdo application marka waxa codsiga la dhiibaa petitionka waxaa la dhahaa I-129F applicationkaas wuxuu ahaa 535 ayuu ahaa wuxuu noqon doonaa 510 asna hoos u dhacay oo waxa ka go'i doonta 25 senti $25 ka go'i doonta senti kulaha applicationka asagana qodadka loogu dacwoodo oo kaba soo qaad ninkay naagta markay isku dacwoonayaan ilmaha iyo waalidka markay isku dacwoonayaan walaalaha markay isku dacwoonayaan oo la dhaho family based oo dadka muxuu ahayd qaraabada ama guur ha ku timaada ama ha is dhalaan oo qoyska ah qaraabo ma ahna qoys that's the right word qoyska dadka isku ah ama guur qoyskaas ha ku yimaado ama dhiig ha ku yimaado markay isku dacwoonayaan ama ay codsanayaan in la isu siiyo sharci applicationkaas waxaa la dhahaa I-130 applicationkaas waxaa ku darsami doontaa $15 qofkii online ku buuxsanaya awal wuxuu ahaa $535 kii marka online ku buuxsanaya muxuu ahayto wuxuu dhiibi doonaa one second let's go back these applications I need to check them off because listiga tiradii ka batay waa kala arki lahaybo $550 ayuu noqonayaa waxaa ku kordhaysa $15 kii online ku buuxsanaya waaye kii waraaq ahaan u buuxsanayana waxaa ku kordhi doonta $25 oo wuxuu noqon doonaa $560 applicationka oo muxuu ahayd travel documentiga ama lagu safro kale hadda waxa waaye $575 wuxuu noqon doonaa haddii alla idmo $590 ayaa muxuu ahayd ku kordhi doonta asagoo kale kan oo muxuu ahayd dadka ay dalbadaan oo qaxootiga marka travel documentiga laba u kala baxaa midna waxaa dalban karaa dadka fiisaha ku yimid oo 2 sano oo waxaa la dhahaa re-entry permit soo gelin ogolaasho soo gelid labaad midna waxaa la dhahaa qaxootiga travel documentigooda midka qaxootigu wuxuu noqon doonaa waxa waaye hadda $135 wuxuu noqon doonaa $145 $10 ayaa kordhaysa ciyaalka markii loo buuxinayo ka yar $16 isla applicationkaas oo I-130 la dhaho waxa waaye 105 laakiin wuxuu noqon doonaa 115 mar walba 10 ayaa ku kordhaysa mid kale ayaa jira asagana marka oo la dhaho carrier document oo isla asaga ka tirsan oo waraaq la qaadanaya kaas uu ka degdeg badan yahay waxaa kaas hadda waa $575 wuxuu noqon doonaa $1010 waxaa ku kordhaysaa $435 ayaa ku kordhaysa haddii alla idmo please share garee videoga a lot of people ay weydiiyeen applicationkan kaleeto asagana la dhaho I-212 oo muxuu ahayd uu ku codsanayo qofka markii xukun laga soo saaro oo kale wuxuu leeyahay waxaa la yiri oo kale wadanka waa in degdeg uga baxdaa ama deportation lagu sameeyo wadankii laga saaro oo kale meel la geeyo oo kale application inuu wadanka soo galo uu ku codsada ayaa jira oo waxaa la dhahaa I-212 applicationkaas wuxuu hadda yahay $930 wuxuu noqon doonaa $150 ayuu noqon doonaa haddii alla idmo waxaa ku kordhaysaa $120 markii kaba soo qaad go-aanay gaarto dowladda oo kaleeto oo muxuu ahayd kaba soo qaad waxbaa codsatay haddaa wax codsatay oo kale wixii lagu diido oo kale ama muxuu ahayd adig go-aan laga gaaro aadan ku qanacsanayn oo kale
waxaa jira wax la dhaho racfaan muxuu ahayd to appeal of motion inaa qaadatid oo motion soomaalida waa taqaanaa ama racfaan inaa ka qaadatid applicationkaas waxaa la dhahaa I-290B wuxuu yahay $675 wuxuu noqon doonaa $700 waxaa ku kordhi doonta $25 marka applicationka hadda soomaalida ee aadka u isticmaasho asagana oo la dhaho I-601 waxa way kaba soo qaad markii lasoo saaray travel bank oo kale dad aad u fara badan ayaa muxuu ahayto uu saameeyay travel banka marka safaaradaha waxay isticmaalayeen applicationka oo la dhaho I-601 waiver u yaqaanaa markii lasoo gaabiyo waa waiverku hadda waa $950 wuxuu noqon doonaa $1,010 ayaa fuulaysa kaba soo qaad applicationkan asna la dhaho I-751 oo waxaa lagu sameeyaayoo kale laba qof markay isqabaan guurkooda uu 2 sano ka yaryahay oo kale haddii ninka ama naagta isku dacwoodaan qofka loo dacwooday guurka maadaamuu 2 sano ka yaryahay si loo xaqiijiyo guurkan guur saxa inuu yahay dowladda waxay dhiibtaa conditional green card ama green card xadidan wax la dhaho kaas markay dhiibto kaas 2 sano waaye marka in shuruudaha la saaray green cardkaas laga saaro kale waxaa la dhahaa applicationkaas I-751 oo waxaa laga soo saaraya xuduudaha ama shuruudaha kor saaray green cardka applicationkaas hadda waxaa waaye $595 wuxuu noqon doonaa $760 waxaa ku kordhaysa $165 ayaa kordhi doonta applicationka lagu codsado fasaxa shaqada oo la dhaho employment authorization hadda waxaa waaye $410 wuxuu noqon doonaa dadka aan dakada ahayn daka waxaa waaye dadkii ciyaalnimada lagu keenay wadanka oo muxuu ahayd sharciga inay ku shaqaystaan ala siiyey Obama 2012 ka liibi jiray hadda ka horna waa ka hadlay dadkaan ahayn waaye markay codsanayaan groupkaas qolada aan ku jirin daladaas aan soo hoosgalaynin waaye $410 waaye wuxuu noqon doonaa $550 ayaa fuuli doonta dadka dakada ku hoos jira ama ciyaalka lagu keenay wadanka oo la siiyay sharciga ay ku shaqaystaan markii koodu isma bedeli doono $410 oo ahaa mar walba $410 ayuu sii joogi doonaa listiga waa dheeryahay I'm literally getting thirsty now applicationka oo dadka ugu badan ay xiiseynayaan oo aad u saameyn doona ayaa wuxuu yahay applicationka lagu codsado dhalashada wadanka ama citizenshipka applicationkaas waxaa la dhahaa N400 applicationkaas hadda waa $640 wuxuu noqon doonaa $1,160 waxaa fuuli doonta $520 people listen gaasta one application oo aadka lacagtiisa u kordhi doonto kaasna waa kan ugu saameynta badan waxaa fuulaysa $520 hadda waa $640 wuxuu noqon doonaa $1,160 ayuu noqon doonaa haddii alla idmo waa marka online ka buuxsanaysid yaa markuu $1,160 ka yahay haddii aad ku buuxsanaysid warqadna waa $1,170 that's waxa waa 81% increase boqolkiiba 81 ayuu kor u kacay applicationka almost 2 laab ayuu joogaa waxaa ku xigoo kale applicationka markay kaa dhunto waraaqda dhalashadoo kale waxaa la dhahaa applicationka oo la dhaho N565 markay haddii sharciga kaa lumo kale ood ka codsanaysa in warqaadii dib lagugu soo sameeyo kaas lacagtiisu way isdhimi doontaa hadda waa $555 wuxuu hoos u dhici doonaa $20 qofkii online-ka ku buuxsanayo oo wuxuu noqon doonaa $535 did you notice applicationada xooga loo isticmaalo waaye waxa lacagta zaa'idka u fuushay kan hadoo kale dadka markuu kaa dhumo kale hadda anigoo kale haddii uu iga dhumo warqada citizenka oo kale waxaan haystaa passport card waxaan leeyahay passport live yes waa u baahanahay warqadayda nolosha way sii soconaysaa sababtoo ah kuwaasa cadeynaya inaan dhalasho wadanka ka haysto marka
usually dadka xoog uma isticmaalaan that application oo percentagekiisa ma badna laakiin qofku inuu sharcigiisa bedelo oo muxuu ahayd deganaashada uu ka baxo dhalaasho wadanka ka helo oo xaqiiqdiisa ay sii badato kaas dadka aad ay u isticmaalaan qof walba markuu diyaarka u noqdo ama uu gaaro xilligeedii ayuu raadsadaa oo eligible uu u noqdo applicationka asagana ciyaalka kaba soo qaad cunug markaa wadanka timid ilmo yar adoo wata markaa citizen noqotid ilmahaaga automatically citizen ayay kugu hoos noqonayaan marka ilmahaas haddaa rabtid inaa warqadda adi aa qaadatay aa u qaadid hadda usually waa $170 hoos ayuu u dhici doonaa ayuu wuxuu noqon doonaa $990 ayaa ka go-eysa waa qofka online-ka ku buuxinaya qofkii muxuu ahayto ku buuxinaya warqad ahaana waa mar walba $10 ayay isdheelyihiin haddaa warqad ku buuxsanaysid iyo haddaa online-ka ku buuxsanaysid oo kale marka lasting waxa waaye waxa ayadana hoos u dhacay lacagta faraha applicationadan oo dhan faray lahaayeen application kasta fara ayaa la socda faruhu awal waxay ahaayeen $85 so kaba soo qaad applicationka hadda xisaabiyo let's do a little bit of math applicationka oo muxuu ahayto citizenshipka markii lagu daro 85 waay hadda lacagta faraha lagu maro 85 plus 640 kii la isku daro waxay noqonaysay $725 marka hadda lacagtaas waxay noqonaysaa $30 so markay ka dhigaan muxuu ahayto 160 wuxuu noqonayaa maca lacagta qofkii waraaq ku buuxsadana 2200 ku noqonaa kii muxuu ahayd online-ka ku buuxsadana 1190 ku noqonaa faraha ayaa waxay noqon doonaan $90 faraha hoos ayay u dhacaysaa lacagtooda oo $55 ayaa laga gooyay listiga inaan mar ayado qoraal ay idin soo geliyo but I notice dadka qoraalka usually ma fiiriyaan inta badan they check ha Soomaalida waa oral society waxa ay maqlaan ayay si fiican uga fahmaan marka intaas ayaan rabay inaan idin la socodsiiyo haddii alla idmo waxayna isbedeli doontaa fadlan October 2nd and more than 97% ka badan boqolkiiba 97 lacagta ay ku shaqeyso USCIS-ka waa lacagta ay qaataan maadaama uu covid dhacay lacag la-aan ayaa ku dhacday that's why lacagta way badiyeen marka intaas ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo waxayna isbedeli doontaa haddii alla idmo October 2nd ayay isbedeli doontaa marka ka faa'iideysta dadkii applicationada gadaal u dhiganayay oo kaleeto oo muxuu ahayd gadaal u dhiganayo kale waqtigaaga ka faa'iideyso sababtoo ah waliba applicationka citizenka 500 jajab ayaa fuulooso marka intaas ayaan rabay inaan ka hadlo you know what's missing green cardka waxaa ka go'i doon 1 second green cardka ma fiirina dahe what else am I missing something hadayta u jeeday oh asylum-gana wuxuu ahaan jiray $0 awal $2 waxba muxuu ahayto lama qaadan jirin hadda waa $50 lacagta dadka markay isdiibaan applicationka ay buuxsadaan waxaa la dhahaa I-589 applicationkaas muxuu ahayto $50 ayaa asagana fuushay just the status applicationadu way fara badan yihiin but those are the things that inta badan dadka ay xooga u isticmaalaan kuwaan kaleeto dadka waxaa waaye oo shaqooyinka iyo waxaas qaabilsan Soomaalida mainly immigrationkooda waa family based qoys ayuu ku salaysan yahay inta badan oo shaqada dadka ku imaada waa yaryihiin 1 second request for hearing a decision that's a lot of money can I know a lot of people who isticmaala ma fiirinina dahe isagana kaba soo qaad oo kale haddii intaa citizenship aad tagtay oo kaleeto lagu diiday ama wax lagu yiri oo go-aanka la soo saaray asagana aad hadda ka hor qofan ka caawiya I remember
kaas oo kaleeto haddii aad muxuu ahayto racfaan rabta inaad ka qaadato oo kale hadda waa $700 wuxuu noqon doonaa $1725 basically waa anaga go-aankan gaarnay ka daba imaanin dib usoo buuxsa waay waxaagii hore khasaari inta badan waxaa aad u isticmaala applicationkan dadka waayeelka ah oo ilaahay ogyahay say imtixaankii ku baaseen haddii wax kale lagu qabsadoo kale they don't want to processka inay gadaal ugu laabtaan oo kow ay kasoo bilaabaan because waxaaba laga yaabaaba ilaahay inuu ogyahay siduu imtixaanka qofkaas uga gudbay marka application kaas asaga ah muxuu ahayd waa $700 hadda wuxuu noqon doonaa $1725 so basically $125 ay ku dareen that's a 146% increase waaye boqolkiiba 146 ayuu kor u kacay oo kaleeto marka warqada ku buuxsanaysid online-ka waaya haddaa warqad ku buuxsanaysid mar walba $10 ku dar whatever price aan idin sheego mar walba $10 ku dar intaas ayaan rabay inaan sheego caruurta dad badan ay weydiiyey ciyaalka citizenshipka usually ma apply gareeyaan oo waalidkood ayay ku hoos jiraan oo applicationada ciyaalka waxaa saameynaya midka travelka asagana waan sheegay iyo muxuu ahayd hadduu green cardka cunuga ka lumo oo kale taasi way saameynaysaa waxaa kaloo ilmaha saameynaya warqadan lagu codsanayo dhalashada taas lacagteeda hoos ayay u yaro dhacday marka intaas ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo wixii hadda laba qof haddii ay su-aal i weydiin karaan oo kale I have maybe 5 more minutes ayaan haystaa haddii alla idmo qofkii su-aal qaba intaan ka fiirinayaa fadlan hadalkaaga soo koob and let's see dadkii qofkii su-aal qaba inaan wax quick ka jawaabi karo waa su-aal qusaysana waxaan ka hadlaynayaa muxuu ahayto geelan raaci jiray halkaasay ka dhacday su-aala kama jawaabayo oon waxaan ka hadlaya qusaysa aanan qusaynin marka let's talk about it work permitka lacagtiisa I think hoosay u dhacday if I'm not mistaken work permitka lacagtiisa yeah work permitka no hoos uma dhicin not really yeah dakada ayaa muxuu ahayd lacagtooda meeshooda joogaysa dadka kale $140 ayuu kor u kacay hadda 410 waaye 550 ayuu noqon doonaa $30 oo faraha ku dar waa $580 that's one gadaal ugu laabo abayo mina marriage-ka ma fahmin marriage-ka qofka ku celcelinaayo passportka ma kordhin waxaa kordhay waraaqda dhalashada citizenship paper kordhay passportka ma kordhin that's a different state department-ga qusaysa taas dadka Mareykanka u adeegtaa soo lacagtooda la easily kuma muxuu ahayd kordhin karaan qofka shan kare ugu qorantaa meesha marriage-ka maxaa laga wadaa condition green card goormaa laga saari karaa condition 2 sano ama 3 bil adi 90 days markay kaaga dhiman tahay 2 sano dhameystiran ayaa ka saari kartaa fiisaha laftarkiisa lacagta way korortay soo qofkii muxuu ahayd soo daahay oo kaleeto fadlan gadaal ugu laabo dakada waxaan ka wadaa dadka oo muxuu ahayd lagu keenay ciyaalnimada oo ayagoon sharci lahayn wadanka la keenay usually dadka waxay saameysaa wadamadan South America ka yimaado oo kale ilmahooda markay imaadaan cunugan yarka asaga ma dooranin inuu wadanka yimaado oo kale sharci la'aana wadanka lagu keenay mana haystaan muxuu ahayd sharci dadkaas oo kale waxaa la siiyaa sharci ay ku shaqaystaan childhood arrivals ayaa la dhahaa kuwaas ayaa muxuu ahayd la dhahaa daka thank you abayo mina travel documentiga lacaga fuulaysa asagana listiga halhalan u sheegay application numberka idin sheegay exactly lacagta ku kordhi doontaa idin sheegay oo waxba kama dhimana marka intaas ayaan idin unemploymentiga waa ka hadli doonaa haddii alla idmo waa isku cakirinta waa la isku haystaa unemploymentiga iyadoo la isku haystaa haddana waxaa soo baxaya boostadii iyo doorashadii ayaa soo hoos gashay
it looks like lacag waa la soo celin doonaa lacagta dadkii qaadan jiray oo dowladda 600 laga jaray laakiin hadda uma maleenayo application marriage ma fahmin application marriage maxaa la hadda marriage application aragtid maxkamadda la tagaa maxkamadaha bixiyo kuwaas student ma ka hadlin I don't know anything about those kuwaas waxba kama aqaan immigration ka caadiga oo dadka imaanaya aqaan usually those dadka academiyada ka shaqeeya ayaa muxuu ka shaqeeya marka qofkii reer Columbus oo rabay inaan ka caawiyo applicationada waa ka shaqeeyaa fariin ha ii soo diro xafiiskayga idin siin karaa igu imaan kartaan intiina kalena ka raadsada meelaha aad joogtaan dad idinka caawiya haddii alla idmo khayr fara badan ayaan rajaynaa assalaamu calaykum